qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Jubbaland iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Jubbaland ayaa soo dhaweeyay kulankii uu madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam uu la yeeshay qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka. Odayaasha iyo siyaasiyiinta aan wareysanay ayaa tallaabadaasi ku sheegay tallaabo loo qaaday dhinaca wanaagsan, waxayna ku bogaadiyeen kulanka uu la yeeshay madaxweynaha Jubbaland qaar ka mid ah siyaasiyiinta, iyagoo sheegay in xilligan loo baahan yahay in bulshada reer Jubbaland loo sameeyo dib u heshiisiin. Ugaas Cumar Xiire oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka Jubbaland iyo nabadoon Anwar Axmed Cabdi ayaa xusay in tallaabadaasi ay ahayd mid loo baahnaa. Bismillahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Miidiyaha waa ma soo booqday Jubbaland baa dib u heshiisiintaas ay ku soo dhaqantay wax hadda maanta cusub ma aha. dib u heshiisiinta aan ka sameysanahay anagu marka madaxweynuhu aad buu mahadsan yahay. ilaa maantii Jubbaland la asaasay ilaa intaas mucaarad badan baa jiray oo dawladda kamida oo noocyo kala duwan leh, raqamyo badan bay lahayd. marka arrin cusub ah waa arrin caado noo ah maartay inaan dadka la hadallo wixii afkaar gaar qabana wixii ay qabaan laga hadlo kadibna xaqiiqada la isugu yimaado. marka madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay. waa raadkii hore weeye qolada hadda aan arkayna sawirkoodana wixii ay go'aan oo gaareen anaga ma ogin, dib baan ka ogaan doonaa. laakiin la kulanku la kulmay iyo hadalku hadlay oo kuwii horeyba sida hadda gaday ka socotaa meel bay ka socotaa, kuwan hadda gada wada waa dib u heshiisiin weeye. marka dib u heshiisiin Jubbaland haddaad maqashaba dib u heshiisiin waad haysaa. marka madaxweynuhu qolada uu la kulmay ay wada hadleen aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay. kuwa kale ee meelaha ka hadlayana waxaan leenahay danta ummadda Soomaaliyeed iyo tiinaba Allah idin tuso. ayagana waxaan madaxweynaha u soo jeedinaynaa ayagana wixii raba inay arkaan oo ay ummadooda ka mid noqdaan, fikradoodana ummadda fikraday ku shaqeynaa qaataan kuwaana inuu la kulmo. marka madaxweynuhu kulankaas aan arkayna aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay. waana tii anaga caadada noo hayda tangada ka socota iyo meelba ka socotaba. marka madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay. kuwa u tagay inay wada hadlaan oo madaxweynaha ay la kulmaan ayaga ogolaadayna ayagana aad bay u mahadsan yihiin. marka waxaan leeyahay kuwa kalena ha ku daydeen. horta dad badan oo miidiyaha ka hadlayaan maqlaya oo madaxweynaha ku haya madaxweynuhu ummadda Jubbaland uu madax u yahay. annaga halkan joogna dhulka Jubbalandna dad baa jooga, dhaqan baa jooga, wasiirada jooga, dad baa jooga. madaxweynuhu dadka waxa loo amray inuu madaxweynaha Jubbaland u yahay. marka qolada wax doonaysa yey wax ka doonayaan marka horeysa annaga meeshan joogna, dadka baa halkan jooga, nin waliba dadkiisa iyo meesha uu u dhashay ee wax ka doonayo inuu dhax imaado yaa wanaagsan. banaan laga hadlo dharaada lahayn dhax kaama celiyaa leeyahay Soomaalidu kuma maahda. marka wixii damac ku jiro halkan ha yimaado, ha noo yimaado, ummadiisa ha u yimaado. madaxweynuhu yahay laakiin meeshan rag baa jooga, ma kaligiiba annaga meesha joogna oo rag oo dhan baa jooga. marka ninka damac reerka kale meesha ha yimaado wuxuu wadana ha noo sheego. waa qodobka labaad, dalku wuxuu u baahan yahay in la xoreeyo. neegtiin baan qaadanaa hotel baan iska fadhiyaa ma yasir wax soconaya ma laha. hal la yimaado ninka afkaar qabo, ninka madaxweyne dooniyo, ninka xil dooniyo, dalka inuu qoriga qaado, dalkana wax ka xoree, waxa doonaysana dadkaaga ka soo doono. bismillah alxamdulillah wa kafa. TV waa salaamaya, waan soo dhaweynaya. aan kala soo dhaweynaya madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam aniga ah nabadoon Anwar Axmed Cabdi inuu safarkiisa dheer u qaadanayo meel kasta goob kasta uu tagayo dib u heshiisiin. xalan xisbiyada mucaaradka ay wada kulmeen, xisbiyada wada kulankoodana aad baan u soo dhaweynaya. waxaana muhiimadu tahay oo fiican oo laga maarmaan ah nimanka deegaanka ku dhashay ee Jubbaland ee siyaasiyiinta inay dalkooda gudihiisa ku soo noqdaan oo Soomaalida kale sida gobolada kale ee Soomaaliya ismaamulada mucaaradkooda gudaha dalku u jooga. nimanka Jubbaland u dhashay ee gobolka kasta jooga ee deegaanka kasta dalka dibadiisa jira waxaan u soo dhaweynayaa si madaxweynaha u raadinayo inay u soo raadiyaan nabadda, wada hadlaan. wada hadalkaasi aad baan u soo dhaweynaynaa annagoo ah odayaasha dhaqanka reer Jubbaland iyo waxgaradka iyo bulshadaba. وانا مهسنتين TV وامو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وانا دين سلام يا تيفيغا وامو آدي أدبن دين سلام يا ورياشة إيو تيفيغا با أدبن دين سلام يا سلام كدب وحان آدي آدو سود وين يا madaxweynaha Jubbaland oo kula kulmay raggii waxaan ku dhahaayay mucaaradka ahaa
oo Nairobi kula kulmay arrintaasaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa waxaa kale oo aan soo dhaweynayaa oo rajaynayaa inay yimaadaan Kismaayo oo qofka asagoo tabashada iyo way kala tahay dawladnimadu way kala yihiin ayagoo Jubbaland ku dhex jira tabashadooda inay cadeeyaan yimaadaan dadkooda iyo deegaankooda iyo shacabkooda ay dhex yimaadaan halkana lagu wada hadlo labada qof haday wada hadlaan way heshiiyeen marka kulanka asaga ahaa ee shalay ka dhacay 19 bisha aad iyo aad Nairobi ka dhacay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ragga odayaashana waad mahadsantihiin baan leenahay madaxweynaha la kulmay madaxweynuhuna aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay xildhibaan maxamed culujoog oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Jubbaland oo isagana ka hadlay kulanka oo madaxweynaha Jubbaland uu leeyahay qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dawladda Jubbaland ay yeelato mucaarad balse loo baahan yahay inuu mucaaradku noqdo mid dhisaya nidaamka dawladnimada. bismillaahi raxmaani raxiim anigu waxaan nahay xildhibaan maxamed culujoog waxa weeye barnaamijkan aad maanta wadaan barnaamij fiican waa saxaafaddu inay siyaabahan kale u fakaraan ama dadka su'aal weydiiyaan waa wax aad iyo aad muhiim u ah bini'aadankana horumarkiisa waxaa laga gartaa saxaafaddu marka nidaamka ay u shaqeyso dadku saxafiyiin dhaba markay yihiin waxyaalo badan bay laftoodu ku sameeyaan baaritaano ama xaqiiqooyin badan bay soo kordhigaan waxaan jeclahay waxaad aad u dareenaysaan sawirka ama kaamirada madaxweynaha iyo qolada midowga musharaxiinta nimanka baalka idii keen odayaasha Nairobi jooga ku shiray barnaamijka aad weydiinaysaan waa barnaamijkaas waxaan qabaa barnaamijkaas waa barnaamij aad u wanaagsan weeye dadku inay wada hadlaanna waa muhiim weeye madaxweynuhu inuu dadaal geliyo oo uu dhaho hal la wada hadlana waa muhiim weeye ayaga laftooda waa rag wada aqoon-yahana iyo madaxweynuhu inay wada hadlaan oo la wada fadhiiso oo la war maxaa dan ah maxaa meesha hadda aan marayno xageen uga guurnaa maxaan yeeli karaa maxaan qaban karaa berri xageen bahalkeed wax ku wadnaa seen wax yeelaa wada tashi guud inuu imaado dadkuna ay bahalkaas si fiican u wada hadlaan oo la wada jiro waa muhiimadda arrinteedu taasay leedahay saasaan filayaa inta faraha badan dadku waxbay diidaan markay diidaan inta faraha badan dadku haddana ama banaanka ha joogaan ama gudaha ha joogeen laakiin waxa dadka ka dhaxeeya waa nidaamkaas dawladnimada ee Jubbaland nidaamkaas qofna wuu hayaa qofna wuxuu leeyahay war sidan mucaarad weeyaan oo sidan baa ka fiican halla adeer baro waa nin dhalinyaro ah tahay oo iyo saxaafiyiintu waa dhalinyaro tiin maanta dawlad aan mucaarad lahayn waa naagan tima lahayn dawladdu waa in la mucaarado dadka mucaaradku waa inay wax toosiyaan dadku waa inay wada hadlaan la dhaho maxay naga khaldamay maxaa qalloocsamay ama qofku banaanka ha jooga ama Sweden ha jooga ama gudaha ha jooga ama dalku rab ha joogo laakiin waxa uu loo wada hadlahayo ilaa laga wada hadleeyahay ama wax la kala tabanhayo waa dadkii gudaha jooga iyo kuwii dibadda joogayba sababta dadka maxaa ka dhaxeeya laba dhaho haday wax tabanhayaan marka qofku inuu gudaha joogo inuu dibadda joogo waxba problem ma laha waa dad muwaadiniina kulli xaq way wada leeyihiin wada jirkooda iyo noloshooda waa inay ka tashadaan qofba si uu laakiin aragti u arkaa laakiin hadii la wadaago la dhawraa in wada hadallo wax badan baa wanaagsan wax badan baa hagaagi doona insha Allah khayr bay noqon doontaa kullay taladu waxa weeye dadku waxaan kula talin lahaa wax in la wanaajiyo wadada wanaagsan la wada qaado hadii la wada hadlayna la wada yimaado gudaha iyo dibadda labadaba lagu wada hadlo dadku inta faraha badan jaaliyadaha dibadda iyo dadka community-ga dibadda iyo dadku way iska warqabaan wax hadii la bilaabo in la wada hadal wada halkaas wanaag in lagu dhameeyo taasaan u qabaa taasaan ku talin lahaa Ahmed Abdi Mohamed Ahmed Toronto Wama TV